الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan rabaa inaan dul istaago xalka magaalada Boosaaso waa xaaladda ilmo Diyaano iyo Siciid Qurux meesha ay marayso. wada hadal iska soo gabagabow wax natiijo ah oo ka dhashayna ilaa hadda lama hayo. ilmo Diyaano is aruuriye xeradii dabada la gale ciidamo badan ka fakade saraakiil badan ka soo baxsade dawladda u soo gale ciidamo saraakiil caan oo ay ka mid yihiin asaasayaashii BSF-na ah ka soo gale minus mooye balaas fiican soo gali waa difaacyadii ka baxe aase godadkay qoteen 6 milyan oo awal taagnaayeen hana la siiyo ciidanka intaasoo bilood baa anagu mushaar siinaynay lixdii ilaawe ka baxday maankooda markii xaalku dhabaqiyay oo xaaladu soo xumaatay maankii 6 milyan ka soo baxayay 3 milyan bay habeen hore mareysay ilaa xalay mareysay saddexduna ilaa milyan hadii la halas gargaraaco milyan halas la tago xaalku ka ahaa intaaba laakiin odayga Dani Qurux ahaa waa iska soo awday oo iska soo dhagatiray wuxuu yiri xilkii waa banaynay waxaan ahayn markay xilka wareejiyaan wixii deynoo lagu leeyahay marka hayga hadlaan laakiin xilkaas oo ku fadhiya ma xaalku wuxuu marayaa waxaad moodaa inuu soo gabagaboobay oo dulqaadku dhammaan uu soo dhamaaday sida kale xagga Siciid Qurux iyo diyaar garowgiisi ciidankii ugu dambeeyay ugu awooda badnaa maantu geliyay galabtu geliyay magaalada Boosaaso waa kuwa halka maraya oo ayagoo saasi dabaabaadkooda wata waxa halka shil ka maraya waxa halka suu maraya 37ka BM baba dhex fadhiya xisaab male hubku noocyadiisa kala duwan galabtu Boosaaso ku shubay salligna wuxuu uga dhigay xagga BSF dhankeeda bari madaxtooyada ahabkeeda halkaas isku balaariyeen awal ciidamadii awal ilaa 1000 iyo xoogaa ayadoo 2000 ciidan ku dhawaay magaalada ku jireen oo isweer ka hayeen haddana maanta hubkii ugu cuslaabu gudaha u gashay haddaba taasi waa warbixinta aan idin siinayo waxaad moodaa Dani Qurux inuu dulqaadkii oo dhan ka soo faaganayo meel iska dhigayo inay aad iyo aad ugu adag tahay in la leeyahay Ismaan Maxamuud buu xil ka qaadi waayay kelmadaas inuu aad uga culus tahay cirko ku soo dumay hadii aan ku rooyahay asagoo leh oo markasto oo ismadaya waxa u taga dhahaya war shalay dhooba daarood baan halkaas baarlamaanka kula dagaalay maxaan lahaa sharciga ilaalinayay Ali Salaam baan BMBF ku dagaalay sharciga ilaalinayay oo beenayaan ka qaaday BMBF taliyahoodii sharciga ilaalinayay Ismaan Maxamuud xil ka qaadi waayay asagoo qodobkaas aad ugu adag yahay markii si loo fiirsana gar allay taqaane la oran karo nin reerkiisa xil ka qaadi waayay miya cad kale maamuli kara taasi de aniga ba say u sameyn lahayd saameynta ugu sameyn lahayd bi asaga ku leeyahay taasi waa mid waxaan rabaa marka warbixintii intaas ayga ahaato laakiin waxaan rabaa oday Soomaaliyeed baan ahay meesha maanta la isku haystana ay xaafadiisi tahay inaan dhowr eray ka iraahdo ilmo Diyaano waan ogahay in ay arkaanba inaan cadow ku ahay hadal baan dhahayaa caawa ilaahay qalbadooda ku rogo laga yaabee ilaahay dhaguhu waaniya waansane in hadalkaygaas ay dareemaan nin raga waa ilaab garan doqonna yeelkeeda hadday maqli waayaan waa waajib unaga dhacay Dani mid baan leeyahay shacabkan mid baan dhahayaa ilmo Diyaano ku hormarayaaye Asad iyo Maxamuudow mid baan idin leeyahay xabadi hadday faraha ka baxdo dawlad nin la dagaalami karaa ma jiro oo reerka aad ka dhalatay oo maanta ninka la yiraahdo Dani ka dhashay oo kale ku bedelay oo ninka la yiraahdo Amiir Xaajire ka dhashay oo wada socda baasharo shay Puntland la dagaalamay wadada mareena waad ogeydeen taasi waa mid oo beel iyo beela tiro badan oo isu tagay de beelaha badan isku tagay adkaanaya oo dawladnimada sheeganaya waxa idin leeyahay horta ilaab garate hadii awood noqoto hadday xagga kale military noqoto halka maanta waxa maraya waa aragtaa suuq kuma yaalo oo ma isticmaashid 37 kuma yaalo oo ma isticmaashid shilka kuma yaala fardhubo shaawaradaasi kuma yaalaan oo ma isticmaashid artilleriga halka maraya ay malihid dhashiika qoriga haysta ugu weyn ciidankaagana waa isla garanayna iskana caabin kadib ayana Allah kugu duwo qalbadaadan Allah galiyo waan dareemayaa dumar iyo caruur iyo comment kugu sacbiyada wiilka quruxooda dagaalamaya geesi dhala laakiin
nin raga waa ilaab garanaya geesi dhalay mujaahid horay soco waxaas hadhow meel tegi mayso caanaha iyo biyaha xataa say u keenayaan ma garanayo xataa sharaab ma keeni karaan marka waa iska dareemi kadhaa dee geesiyo horay soco markii daanka lagu jabayana wabaaba xigta marka waxaan ku leeyahay khiyaaliga iyo kuwa ku sacbinayahay yaysan maanta moorada aad dhex taagan tahay iyo maanta nin baad u eg tahay yaysan gabarkaa dhigin yaan dirac laysku arag dirac ayaan laysku waraysan taasina ila garatay midda kale waan rabaa inaan ku dhaha waxaa weeye ifamba haddii la kala yaaco meel laga baxo waddo laga baxa la helo ilma diyaanow buuruhu ic male ic ama aircudation buuruhu male gaari aircudation la xataa buuraha ma fuuli karo oo buuruhu wadooyin ma casiirkan iyo macmacaankan iyo qudaartan la shiido buuruhu koronto wax lagu shiito male casiir iyo camba male hanfi baa yaala waa garanayna silsiladii golis iyo buuri taasna ila fahante waa hadii ragliye waa haddaan waxaan la hadlay rag yihiin ila fahante ka gudoob albasaar asad iyo maxamuud iyo dhammaan reer diyaanow 15 sano hay'adaas jirtay intii aad ku dhex jideen qabiiladii iyo raggii aad suutaha u qabteen PSF ee aad ku tuman jirteen ee aad argeysada ku sheegi jirteen ee aad karaankali jirteen ee haddii alla ku roon ogow oo kuwii waa maanta ciidama wata dushiina fadhiya maxay sugayaan amar bay sugayaan gala in la yiraahdo muxuu rabaa shaatigii uu rabaa shalay inuu kugu dilo kaagana aarsado inuu kugu liso rabaa inta naasaha ku qabto waad ogtahay maanta dushaada waxaa fadhiya faad xanaano baa maanta dushaada fadhiya oo intaasoo suuyi intaasoo bahalkii wata waa nin warsangeli waxaa BSF ku samaysa waa garanaysaa majiyahan waa garanaysaa waagay bilaabatay atom ninkii la oran jiray argagixisana ma al-shabaab nin wuxuu ahaa kimikaysta buuraha waxa galiya waa garanaysaa cidda al-shabaab ka dhigta waa garanaysaa nin raga ilaab garay doqonna yeelkeed ku si fogaan ma hadalka nin raga ilaab garay doqonna yeelkeed kaasi waaba nin waa rag iska wadaa laakiin inta rag halkaa maraysa ayana oo intaasoo kala tabanaysa oo jaanisiyadooda aan beel daraynayn asad iyo maxamuud iyo dhammaan reer diyaanow luuq meel luuqa oo maqas saaran yahay baad madaxa kala soo baxaysaa rag baana maqaska inala dul fadhiya madaxa markaa keentaan raba hafinaysiiyaan sibaad moodaa madaxa inaad u dhiibanaysaa laga yaaba inaad ii aragtaan dani buu la jiraa dani wallaahi lama jiro oo bilaahi lama jiro oo siyaasaad ma taageersani ee wallaahi oo bilaahi oo tallaahi ilaahay baa maqlayay waxaan u jeedaa waxaan hadhow indhaha ka qarsan karin baan u jeedaa maxaad u jeedaa baa waxaan u jeedaa rag waxaan u jeedaa hadhow cadaab la marsiin doono aan hiil heli doonin kan dadka u sokeeyahay kabaha ka jari doono baan u jeedaa waxaan u jeedaa dabaqyadaas ha softeen iyo hantidaas in wiilaan geed u soo maran hadhow fagan doona waxaan u jeedaa meeshii qadaafi ku dambeeyay ku dambeyn doonta waxaan u jeedaa wiilal idii ciil cunay hooyooyinkooda aabbahood meel shaatiga aad kaga gabanayseen inay shaatiga idin soo xiranayaan maanta baan u jeedaa waxaan u jeedaa in casiirka bataatiga iyo baradhadu iyo aircudation go-ayaan u jeedaa inaan ilma diyaano inaan u baran inaad buuraha cagacadaan ku dhan baan u jeedaa war intaa miyaan ka dhaqasana hadda hadalkayga kuguma socdo waxaa kugu socota islaamaha iyo carruurta meelaha kaale xasan geesi dhalay horay soco keep going baa u jeedaa laakiin markii waxaan u jeedaahay dhacaan markaasaad isoo xasuuntaan waad dhihi doontaa ilaahu maalmihii ayuub kula hadlayay yaa dib u cesha yaa rabiib ahaa cajilad oo maanta maalintii ayuub kula hadlayay ka dhiga ataankii u tiraahda ayuube ortol baan nahay ehel baan nahay walaalahay baa tihiin saaxiibaday baa tihiin puntland lama dagaalami kadhaa constitution dhisan oo dad ku heshiiyey lama dagaalami kadhaa war awoodeed ma lihidiin war tignikadeed ma haysataan war dhaqaalaheed ma haysataan
warmaanta dani waana idinka saxan yahay waana idinka xoog badan yahay waa idinka saxan yahay waxaa leedihiin madaxweyne ma tihid baa loo soo fadhidaa shalay baa asad intaad hor wada gasheen buu kaa badiyey adaa kusoo haray maa tiraahda dani oo madaxweyne ma tihid oo khalad beenta way maa tiraahda shalay maxaad u aqbashay natiijada doorashada haddaad dikreetadiisa diidaysid dikreetada dani haddaad diidaysid maxaad u aqbashay doorashada u kaaga guulaysa maxaa u aqbashay dikreetadiisa baa diiday taliyo ciidan inuu yahaa diiday khalad miyaan kula garab istaaga walaalkayo anoo dani u jeedan inuu aan siyaasnaan kaga soo horjeedo oo mucaalad ku ah miyaan adiga khalad kugu raacaa miyaan puntland duminteeda isu raacnaa miyaan constitutionka lagu heshiiyey inaan burin haddaa buriso oo la jajabiyo oo dastuurka laga soo horjeedsado dee reer kastow nin kastow nebiga ummadda waa imaanaysa taa miyaan kugu raacaa marka maya walaalkaa hadduu khaldayahna qabo haddii laga khaldaya garab istaag wallaahi maanta in yar oo lagaa khaldanya maanta ku garab istaagi laha laakiin kuma garab istaagi karo waa khaldan tahay walaalkay daniga aan mucaaradka ku ahaa baa kaa saxan inaan ku dhaho walaal waan laka saxan yahay sharciga u raaca dantaydaa ku jidha danta puntland baa ku jidha danta dastuurkaa ku jira walaalkayow mid baan ku leeyahay halkaa waxa dabaabaad maraya ma haysati inta qori halkaa maraysa dhashiikaad ka haysataa iskama celin kadib xeebtaa waxaa hataa gelisid ma haysatid doon ma haysatid walaalkayow nabadda qaado iskana wareeji ciidankan bilaa shuruud waa aragtaa axmaq dani oo axmaq ah kaa xoog weyn kaana saxan jeensan mayo wuxuu hayay soo kaxay maanta kabaroo kala dulmaraya chance buu kugu haystaa puntland ninkii loolan kula jiray ba ahay horta sumcaddaadi sharaftaadi cuntay haddana naftaada ha dili sumcad iyo sharaf waxaad lahayd cuntaye naftaada ha ku dari war ilaahu matri war nin raga waa ilaab garan doona yeelkeed war walaalkayo ciyaalka iyo dumarka keep going kugu haya war ma oga buuraha wax yaala ma oga sida cabuuraha yaala ma oga kuleelka iyo hanfiga ma oga laakiin adigu waa ogtahay oo dareemi kadhaa haddii aadan ogeyn ciidanka laftigooda ciidankan buuraha ka dagaalamo oo rag ah warayso adigu waa ku aqaana xaga barur bay tahay kala dhex baxayd gaari haddii ay siire wiilashaan warayso cagaaga ku mara ma jira buuraha warayso ayay ka warayso hanfiga yaalay kuleelka yaalay ka warayso inta aadaan ku leeyahay haddaa iga aqbashidna alxamdulillahi rabbil caalamiin walaalkay jiraa tahay haddaa iga diididna mar kale aad ogaan doontaa hadalkay mar kasta oday weyno waajibkiisi ritay baan ninka la yidhaahdo dani qurux mid baan leeyahay daniyow puntland waa jirtay dad badan oo sida tan oo kale dastuurka ku xadgudbay oo amar diida sameeyeen waa jireen madaxdii kaa horreysay dhimrin bay samayn jireen isimaday maqli jireen waxay ka dhowrsan jireen si aan xabada u dhicin way saabasaabayn jireen xataa qaybaa laaluus ku bixin jirdhay inaan xabadi dhicin ina adeero xataa hadday noqoto inaad lacag ku bixisid oo madax furashada ay sheeganayaan xataa inaad bixisid inaad noqotid ina adeero samee baaji kuma lihi dikreetadaada kumana dhihi karo oo dastuuriyan baad baaba'aysa iyo dadnimo iyo dowladnimo laakiin qaab kasto aad wax xalin kadhid oo xabad kaga baaqsan kadhid kaga baaqso hal wiil oo dhintay baa ka liita awood kastoo aad leedahay xabadda boose ka dhacda wax ka xun maanta oo dhici lahaa ma garanaya xabad boose shacabka dhigahooda maqashay nabadda intaa ku laanooleyni waxaa isdagaalaya inay ciidamada puntland ayana yihiin ayana wax kasta foolxumo iyo qaraacankeeda leedahay fadlan intaad ka dhowrsan kadhid waa fadlan maaha waxaan sharci kugu leeyahay maaha amar kugu leeyahay maaha waa baryo waa fadlan min fadliku intaa wax xeerin kadhid wax xeeri dulqaad samee isimada janisi ha wacyi geliyaan wiilasha waktiga ha soo koobin oo ka daa waktiga ha soo koobaysid iyo caburinta waktiga xoogaa u dheere intaas adiga ku leeyahay isimada shacabka midaan leeyahay isimada iyo shacabka midaan leeyahay weliba gobolka bari war wax garata gobolka baryo war inta hal mar istaagtaan halla
نبض كوب باقنا دنيا وصاصمه إن الديانة نبض عندك كوب باقنا تناسل سماية وحا هذا الماء وحا الماء بهدل بيدك ور انت هذا الشان وحا ترى هذا هبلو كين كان لا خلطن هبلو خالد بات كتشر تاي خالد كبحده هدو ديدو إذا عدا استاغا وحا ترى هذا ولا يقر ديدي شعب ومغلى خالدك وحا اسكره هبل بالده دو مركا عدي كان امر سي waxaan tiraadaan waxa hartaan sameey laakiin dadka waxaan leenahay nabada laga shaqeeyo dadka waxaan leenahay waxa hadal jilicsan way hadal gobolka bari aan nasood ahayn way hadal waxa way aad u jilicsan iska daay war idinka kartidiina iyo nasbadiina muujiya war wax garadka iyo labeenta gobolka bari war waxa idin dhaamay hooyooyinkii ka hadlayay gobolka bari sidan xayiga ay nasbadan u hadlayaan odayaashu waxaad moodaa inay eexsanayaan sandareerto labada dhinacba laga kala qaato sandareerta labada dhinac laga qaato inay eexsanayaan war isufa oo hal oo sikartida oo hal intaas aan leeyahay agaasimaha cusub mid baan dhahayaa amin xaaj khayr waa ku ducaynaya horta waxa qoran ilaahay horta kula garab garan kula shaqada qabatay shaqada lagu idmaday rabbi ha kula garab garo mid kale waa kugu daraya amiino ilaahay kaama dhigo ilaahay ha ka dhigo hay'adan lagu dhiibay ee magaceedu hore ahaa BSF inaad magaceedi ku soo celisid BSF waa Puntland Security Force hadda waxaa laga dhigay DFC Diana Family Company magacaas mid ka soo celiya oo magaceedu hore ku celiya Allah ka dhigo ilaahay iimaanka ha kugu sugo oo Allah kaama dhigo mid ragga dhiigooda ciidanka dhiigooda dabaqay ka dhista anoo ogba inaad baahi qabin oo aad intaas dabaq leedahay hantiirata haddana ilaahay kaama dhigo iimaan kaama sidaado ilaahay mid raggiisa isku wada dadkana daacad ugu shaqeeya Allah ka dhigo intaasaan ku leeyahay wassalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.